محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكال مي ولالكا كليك سي ايو ديرغليسو وقسوين كيني تحناها سويالك سوبنا صلى الله عليه وسلم قيبتي goobta iyo goorta uu dhashay suubanaha sallallahu calayhi wasallam. goobtu waxay ahayd magaalada Maka ee sharafta badan, gaar ahaan halka reer Bani Haashim ay ka deganaayeen, waliba guriga adeerkay Abu Talib. waxaa nabiga sallallahu calayhi wasallam hooyadii la joogtay habeenkii ay foolanaysay haweeneyda lagu magacaabo Ashifa oo ah hooyada dhashay saxaabiga la yiraahdo Cabdiraxmaan bin Awf. nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa xanaanayn jirtay adoon u lahaa aabihi Cabdullaahi oo la oran jiray Ummu Ayman Baraka oo xabashiyad ah. suubanaha sallallahu calayhi wasallam markuu dhashay waxaa nuujisay hooyadii. toddobaad kadibna waxaa nuujisay Thuwayba oo ahayd adoon u lahaa adeerkiis Abu Lahab. farxadii dhalashada nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa isla markiiba gaartay Cabdul Muttalib oo isagana farxad iyo reereen uu qabay dhalashada wiilka uu awowga u yahay u bixiyay magacaysan Carabi hore u maqlin, wuxuuna ugu waqlalay Maxamed oo ka dhigan kii la mahdiyay. waxaa la dhahaa magac bilaash uma baxo. dhab ahaantii dunida oo dhan ayaa mahadisay dhalashada suubanaha sallallahu calayhi wasallam, maxaa yeelay wuxuu ka saaray mugdigii iyo baadidii ay ku jireen, wuxuuna u saaray iftiin, nuur iyo inay si xaq ah u caabudaan Allihii abuurtay si ay u helaan liibaanta labada daarood.